shirweynaha qaran ee looga hadlayo ammaanka dalka oo maalintii saddexaad soconayay ayaa maanta ergada shirka ka qaybgalaysay waxa ay ka doodeen sida lagu adkay karo ammaanka dalka iyo arrimo kale oo ku saabsan xaaladaha ammaanka. Ergada oo loo qeybiyey koox ayaa waxa ay si aad uga doodeen qodobo ay ka mid ahaayeen amniga, sida lagu xoojin karo, sida looga hortagi karo argagixisada, mas'uuliyadda cusub ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo qodobo kale. Ergada ayaa shirka intii hore markii ay soo gabagabowday doodooda qodobadaasi waxa ay soo gudbiyeen talooyin aad u muhiimsan oo xagga amniga ku saabsan si nabadgelyada guud ee dalka uu u noqdo mid la isku hadlay karo, iyaga oo soo bandhigay sida looga hortagi karo caqabadaha xagga ammaanka ee ka taagan Soomaaliya. Shirka amniga ayaa qaybtiisa dambe ee maanta waxaa ku soo biiray wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow, wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka Marwo Khadiija Maxamed Diiriye iyo xubno kale. Labada wasiir ayaa ka jawaabayay su'aalo la xiriira saameynta saxaafadda ay ku leedahay xagga ammaanka iyo kaalinta haweenka ee nabadgelyada dalka. Warbaahinta iyo doorka ay ka qaadan karto amniga qaranka. wasaaradda warfaafinta iyo doorka amniga qaranka, muujinta baahinta iyo gaarsiinta shacabka Soomaaliyeed dhammaan deegaanada laga xoreeyay nabadiidka, diyaarinta barnaamijyo la xiriira nabadda, horumarka iyo xasiloonida ka jirta magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda si loo helo xog rasmi ah. Wariyaasha warbaahinta qaranka waxay safka hore kaga jiraan furmaha dagaalka lagula jiro nabadiidka al-shabaab. saddexdii bilood ee ugu dambeysay wasaaradda warfaafinta waxay ku tallaabsatay horumar la taaban karo, maadaama howlihii iyo waajibaadkii loo igmaday ay qabatay iyo kuwo kale oo badan ay ku guda jirto hirgelintooda. Run ahaantii wasaaradda warfaafintu waa halbowlaha xukuumadda federaalka Soomaaliya, isla markaana isha kaliya ee laga baahiyay siyaasadda iyo horumarka dowladda ku tallaabsato maalin kasta. Wasaaraddu waxay gacanta ku haysaa warbaahinta qaranka oo kala ah raadiyo Muqdisho, telefishinka SNTV, wargeyska dalka, website-ka iyo Sona iyo wixii lamid ah, kuwaasoo shacabka Soomaaliyeed gaarsiiya warar sugan oo xaqiiq ah oo run ku qotoma. Telefishinka qaranka oo ah midka ugu saameyn badan marka la barbar dhigo telefishinada kale ayaa wuxuu door weyn ka qaatay la dagaalanka kooxaha nabadiidka ah iyo dib uga xoreynta deegaanada ay haystaan, taasoo guulo la taaban karo laga gaaray usbuucyadii ugu dambeeyay. Waxaa sidoo kale telefishinka sabab u noqday in qurbo joogta Soomaaliyeed dib ugu soo laabtaan dalkooda hooyo si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalka. waxaa la magacaabay guddi farsamo oo dib ugu isku sameynaya qabi qoraalka xeerka saxaafadda. waxaan bilaabnay barnaamijka xornimo oo TV-ga 6 jeer maalin walba ka baxay iyo 3 jeer oo raadiyo Muqdisho laga sii daayo si shacabka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo guulaha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa AMISOM. waxaan wacyigelin laga sameeyay degmooyinka magaalada Muqdisho kuwaasoo qayb ka ahaa muujinta amniga magaalada. waxaan qabanay bandhig faneedyo lagu muujinayo amniga dalka ka jira, isdhexgalka bulshada iyo dib u soo nooleynta hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed. waxaa la sameeyay documentaries iyo doodo muujinaya nabadgelyada ka jira magaalada Muqdisho. waxaan AMISOM kala shaqeynay barnaamij la xiriira isku xirka istiraatiijiyada warbaahineed ee gobolada la xoreeyay. waxaa dayactir ka socda wakaaladda wararka ee Sona si howlihii wakaaladda dib aan u dardargelino. waxaan wadnaa qorshe lagu balaarinayo howlaha ay qabtaan gobolada qaranka waaberi si ay uga qayb qaataan doorkii ay ka qaadan lahaayeen wacyigelinta shacabka Soomaaliyeed. waxaan dardargelinay barnaamijyo wacyigelin ah oo ka qayb galaan culummada diinka, aqoon-yahano iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasoo xoogga lagu saarayo gudbinta fahamka saxda ah ee diinta Islaamka iyo barashada dowlad wanaagga. haddeer waxaana hor yaalla sidii dowladdu ku hirgelin lahayd heshiiskii madaxweynaha uu la soo galay iyadoo lagu ilaalinayay dhammaan wixii xadgudub ku ah xuquuqda aadanaha. waadna ogtihiin Soomaaliya sanadahan dambe waxaa lagu tilmaamaa in dal xadgudub sida la sheego oo xadgudub inuu ka dhaco ay arrimaha bini'aadanimada ay liidato ay meel hoose tahay, dowladda wanaag aysan jirin. laakiin waxa Soomaaliya lagu sheego caalamka intiisa kale ee nidaamka iyo kala dambeynta haysto ayay ka dhacaan oo hadda wax gaar u ah Soomaaliya ma jiraan. sidoo kale qodobada shirka maanta looga doodayay waxaa ka mid ahayd kor u qaadista xiriirka dadweynaha iyo amniga. Shirka amniga looga hadlayo ayaa lagu wadaa in maalinimada beri haddii oo Alleedma la soo gabagabeeyo iyada oo laga soo saari doono talooyin muhiim ah oo xagga amniga ah. Mustafa Maxamed Xiire, telefishinka qaranka Soomaaliya, magaalada Muqdisho.